ku xidhan garoonka Kasarani ayaa wali cagran. Dowladda Kenya waxa ay sheegaysaa in ay wali wado kala soocidda dadkaasi. dibadda hore ee garoonka Kasarani ayaa jawigiisu ahaa mid buuq badan. waxaa dhooban dad tiro badan oo ah eelada qaar ka mid ah dadka xidhan. waxaa dadkaasi loo diiday in ay booqdaan ama gudaha u galaan garoonka. أنا ومعيد بريء وحوي شرع كينيا وضنا كاسر مارتو حنو ترى ملها مركا شرع إذا مركو مارتي أم دورسي مات كبانا مارتو حنو غنى أرجل مركي مارتي دورسي ما تنا كبانا وحتى ملها ساس النون ما ولا ليل. أنا محمد هاشم باري لاي وحنكي ما مجال هذا مديرة وحن جعلنا أنا مسح الله سومالي كنا الله رافع ونلو رافع إن تنزانيا وكا كونغو ومجال هذا نلقى حتى إنديا نلقى وده ما مركز هذا قفك مقصود أنا وكينيا كينيا وسهلة يكون عمل ليس قادنا ولا سواء زراعة بقولني السودان سومر ولا متفقنا بقولني السودان بدنا سومري خاطر أنا فهمش مركا بسم الله الرحمن الرحيم عبد الرحمن عبد الله مدينة نيروبي شرحنا حبد وسلي waxaa meesha ka jira walaalayaal wax loo dul qaadan karo ma ummadda Soomaaliyeed hadii sharci Kenya haystaan hadii sanaysan habeen walba waa la qabtaa xalay u dambeysay laba mar ciidanka soo dhaceen حتى guriga tartiib loo magaraacay waxay wataan budad waaweyn qofkii macnaha حتى tartiib uu kaadi yaa waay ani waa adiga tahay maskariga tartiib bas ma jirto waxa marka ummadan kulay dawlad beeladahay ilaahay inta ka faqayso dawlad beeladahay dal beeladahay hadii ummadan lagu talagalay in saas loo bilqaysan ummadda saas loo laayo tafadaali hal cili wadan beelay kasraani lagu xareeyo oo gabdhihi umulaha ay kuwii uurka halka ay ku silcaan wax loo dul qaadan karmaan nin la dhaho xataa sheekh maxamed baa sallallahu alayhi wa sallam خياطة شاحة مثل محدد رسالة ودك سنة كلها كسوع عياته جهاد أنا بشرعي يومها أبين دو أنت اللي قبتي ولا تنسانيا متنوب شرع تنسانيا وتا تنسانيا كل شيء بكرة سنجوجا أرجع حسة وحلا أرجع حسة ولا يقال أبين دو أنت ولا قحيي تتكلم كقحيي تتكلم حسة وقحيي دول بلين وحيلي ما يصدون بلين balse afayeen hadlay booliska Kenya Mas'uud Muunyi waxa uu xaqiijiyay in hawlgalkii jimcihii bilowday lagu soo qabqabtay 3,000 oo qof ilaa iyo haddana xabsiyada iyo garoonka Kasarani lagu hayo 447 qof oo laga shakisan yahay. waxa uu sheegay in dadka la sii daayay lagu sameeyay baaritaano dhanka ammaanka ah. The objectives of the operation are as follows. 1. sababta aan hawlgalkan u qaadnay ayaa ah in la ogaado dadka sharci darrada ku jooga dalka iyo in la qabta dadka ka dambeeya amni darrada dalkani ka jirtay iyo waliba in la ogaado goobaha ay degan yihiin dadka amaan darrada dalkani ka wada. ilaa haatan waxa aan qabanay ilaa 3,000 oo ruux oo la baaray oo la kala soocay 447 ayaa la hayaa oo loo baahan yahay in lagu sameeyo baaritaano dheeri ah. 69 ruux ayaa maxkamad loo geynayaa in dalka ay ku joogaan si sharci darro ah. Have been taken to court to answer various charges by today. dhanka kalena waxaa xaaladda ka walaacsan hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR loo yaqaano oo dhammaantood loo diiday in dadkaasi xirxiran ay booqdaan. booliisku waxa uu ku adkaysanayaa in dadka xirxiran aysan ahayn Soomaali oo kaliya ayna ka mid yihiin Kenyan, Ugandese iyo Sudanese. Allegations have been made that certain communities and states are being targeted. waxaa jirta cabasho ah in bulshooyinka qaar la bartilmaameedsanaya amaba dadka haysta diimaha qaar. waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in arrintaasi aanay run ahayn. waxaa jira dad ka soo jeeda qowmiyadaha kala duwan amaba haysta diimaha kala duwan ee dalkan oo la baaray. Nationalities and communities who have undergone the screening process. Xasan Deeq Cabdullaahi Haybe.